هضربت هنا بزنس بلاودو afartan book waa inaa akhrisaa afartan book noloshaada ayay bedelayaan waxay kuu fududeynayaan haddaa rabto inaad ganacsi bilowdo it doesn't matter hadduu real estate yahay haddaa rabto e-commerce anything even retail store haddaa rabto inaad bilowdo noloshaada ayuu bedelayaa afartan book waan kula wadaagayaa walaal soo dhowo magacayga waxaa la yihahdaa daahir halkan waxaan kaga hadalnaa real estate investment wax loo yaqaano personal development inshallah I'm the founder of saxan investor ayaan ahay platform dadka ka bartaan soomaalida real estate investment inshallah nagu soo boqo saxaninvestor.com haddaa rabto arrimaha guryaha inaan kaa caawiyo aniga inshallah waxaad kusoo boqon kartaa website-kayga saxanrealty.com ونين بلابيا. Alright, بوكو كواد حلو يقنا The Lean Startup وحنا قري Eric Ries. So بوكو نحكي هذا يا حلو يقنا Lean Approach إنا استعماله basically like وحي إنا test جريسو product valid جريسو product اللوجو سوق اللوجو بهاي إنا تهاي أنت وقت هذا كارلو من. So بوكو لواد حلو يقنا 0 to 1. So Bogan basically wuxuu dadka kula taliyaa mostly in a new product ee suuq keenaan instead of intay qof kale copy ay soo dhilaayeen product kale soo copy garan lahaayeen in ayaga product cusub ay keenaan oo dadka waxaan wali suuqa aan la keenin hore loo keenin in sameeyo firda la imaadaan Boga saddexaad waxa loo yaqaanaa good to great so Boga soo ka hadlayo dadka mostly wuxuu ka hadlayaa kambaniyada successful like an Apple Amazon kambaniyada waaweyn the traits ay leeyihiin ama wax loo yaqaan sifooyinka ay leeyihiin ay ku gaareen hadafkooda ay ku gaareen ay successful ku noqdeen waxyaalayaasha sameeyo ka hadlaya buga afraad oo loo yaqaano E-Myth Revisit bugan wuxuu ka hadlayaa asagana waa another book way classic way this one waxaa akhriyay like I don't know in 2018 2017 all these books waxaan akhriyay markaan bilaaway janigan oo business ka inaan bilaawo aan rabo markaan bilaaway ayaan akhriyay most of them this book wuxuu ka hadlaya you have to like systemize system inaad samaysato and you have to delegate inaad qof kale shaqada ku qabto si businesskaada kor ugu qaado dadka qaar fikrad waxa ka dhalacsan wax walba aniga qaban kara wax walba anaa sameyn kara qof aniga iga fiican oo shaqadan qaban kara ma laha ha maskaxdaas sidaas u fikirayso waliga shaqadaada waxay ku noqonaysaa shaqo ay kuma noqonaysa ganacsi aad ka dhaxbixi karto xorriyada ku helayso and the whole point of sameynaysa business u sameynaysan waxay tahay qof bilaadanka inuu xorriyad helo so afarta book da akhris waxaan aaminsan noloshada boogana haddaad YouTube channel ka daawanayso literally in my bio baa ka helaysaa all of them for free ayaga all the links waxaa ka helaysaa boogan in my bio YouTube channel dad inshallah soo subscribe garee haddana ka daawanaysa halkana TikTok ka daawanaysana na soo follow garee inshallah wa salaamiya assalamu alaykum